السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تودا الكسو دوادا متكمدا عشرة كساب سنة برشة لغة إنجليزية طبعا 10 كمانتا و10 كيشانات 10 دي إنو سعودي بلوغة لغة إنجليزية واندوان بلوني 10 كان طبعا وحو كساب سنة directions أما جهوينكا أما تلمامها مركي ميل تلماميو مركا direction erigan macno dhowr ah ayuu leeyahay laakiin hadda waxaan ula jeednaa tilmaanta ayaan ula jeednaa marka soo kale eriga wuxuu noqdaa marka jihooyinka ama maaragtay afarta jiho markii la tilmaamayo waa loo isticmaali karaa ama meel walba markii la tilmaamayo waa loo isticmaali karaa marka waa 10 bilow ah 10 aad muhiim ah marka waa laba qaybood marka 10 ayaan guda galaynaa qeybta koowaad iyo qeybta labaad labadaba isku mid marka maaragtay kaliya waxay ku kala duwan yihiin meesha loo socdo ay ku kala duwan yihiin marka ayaa hadalka bilaabay wuxuu yiri excuse me iga raali noqo is there a bank near here ma waxa halkan ka dhow bangi marka excuse me iga raali noqo erigan dhowr mar ayaan soo sharaxnay waxa la yiraahdaa iga raali noqo marka excuse me iga raali noqo is there halka waxa ah a bank near here bangi halkan ka dhow miyaa jira marka ama banki miyaa halkan ka dhow bank waxa la yiraahdaa bangiga lacagta maaragtay la dhigto ayaa la lahaa marka excuse me waxa la yiraahdaa iga raali noqo near here marka meel halkan u dhow eriga near waxa la yiraahdaa meel u dhow marka ama hareerahan ama meelahan ama meel dhow اللي كلامك yes there is waxa a punk on the corner ka ama geeskaas waxa yaala waxa ku yaala bangi marka on the corner hadda waxa loo jeedaa meel gees ah marka meel gees ah ayaa la yiraahdaa marka on the corner marka geeska halka ah waxa ku yaala bangi marka thank you mahadsanid you are welcome adiga mudan marka on the corner waxaan dhahnay waa geeska ama meel maaragtay gees ah ayaa la karaa marka directions to ama qeybtii labaadna excuse me eegi waa hadal ayuu sii bilowday wuxuu yiri excuse me iga raali noqo is there waxa halka ah supermarket near here supermarket near halkan ka dhow marka ama suuq wax laga iibsado eriga supermarket waxa la yiraahdaa suuqa ama dukaanka cuntooyinka lagu gado ayaa la marka waxa la marka waxa halkan ah wuxuu yiri is erigan ista waxa markii su'aasha la bilaabayo su'aal marka qofka la weydiinayo inta badan lagu bilaabo marka isaya halka ma waxa ah supermarket near here supermarket niya meelahan ku yaala ama hareerahan ku yaala yes there's one waxa jira mid niya here halkan ka dhow marka waxa jira marka mid halkan ka dhow marka supermarket halkan ka dhow ayaa loo jeedaa marka how do I get there halka marka sideen ku aadaa marka waxa loo jeedaa dukaanka marka how do I get there halka marka dukaanka sideen ku tagaa marka qaab noocee ayaan ku tagaa macnaheedu waxa loo jeedaa tilmaan oo kale ayaa loo jeedaa hadda how do I get there qaab noocee ah ayaan ku gaari karaa halkaas marka at the traffic lights nalalka gawaarida ama traffic light-ka ama waxa la yiraahdaa marka waa nalalka gawaarida iyo shacabka kala xiga marka oo magaalooyinka wadooyinka ku dhigan marka waxa la yiraahdaa at the right traffic lights nalalka gawaarida markaad tagtid ama markaad gaarto waxa loo jeedaa marka goobta nalalka gawaarida ama trafficada ku yaalaan markaad gaarto teeg u qaado the first lift
wadada koowaad waxaad u qaadataa bidixda marka an intaas kadibna go straight on wadada marka wadada si toos ah ugu sii soco marka go straight on waxa loo jeedaa marka wadada ha ka leexinin oo wadada si hay marka ayaa loo jeedaa marka is on the left inta kadib marka waxay ka qabanaysaa dhanka bidixda ayuu ka qabanayaa supermarketkii ayaa loo jeedaa marka waa un tilmaam ayaa loo jeedaa laakiin muhiimadu waxay tahay inaan barano ereyada ku jira marka ereyga koowaad waxa dhahnay excuse me waxa loo jeedaa iga raali noqo a bank waxa dhahnay waa bangiga lacagta near here waxa loo jeedaa marka meel halkan ka dhow on the corner waxa loo jeedaa marka meel gees ah supermarket waxa dhahnay waa meel cuntada lagu iibiyo sidoo kale the traffic lights waxa dhahnay nalalka kala xiga trafficada iyo dadkaba sidoo kalena waxa dhahnay marka the left waxa loo jeedaa marka bidixda go straight on waxa loo jeedaa marka wadada toos ugu sii soco marka casharkii oo ahaa cashar aad u kooban maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxa uu ahaa qaybtii shanaad casharadii bilowga luqadda ingiriisiga intaan cashar kale ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo